but for hundreds of years, camels have been used to produce milk, yogurt, and even cheese. Assalamu alaikum. Geelu waa mid ka mid ah nimcooleyda eeban uu galaday waa halbeeg muddo Soomaalidu ku cabiri jireen hodantinimada ruuxa. Waa xoolaha la dhaqdo kan ugu lixaadka weyn ee leh kurus. Inkastoo bartamaha Aasiya laga helo laba kurus leh. Sida aan wada ognahay, geelu waa noole cajiib ah oo waxyaabo badan oo jirkiisa ka mid ah daawo alla nooga dhigay. Waa xayawaan gaajada iyo haraadka u adkeysan kara bilooyin. Sidaasi oo ay tahay, haddana isbeddel kuma yimaado faa'iidooyinka laga helo, siiba hilibka iyo caanihiisa. Muuqaalkeena maanta ayaan kaga hadli doonaa dhowr faa'iido oo caafimaad ahaan laga helo geela, caano iyo hilibba. Balse ugu horeyn, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe dheh. Haddaad muuqaalka ka heshidna like saar. Wixii aaraa ahna commentiska igu dhaaf. Aan bilaabo muuqaalka. شكرا يا ربي شكرا. caanaha geela caafimaad ahaan waxaa la isku waafaqsan yahay caanaha ugu caafimaadka badan dunida marka laga reebo caanaha naaska hooyada oo aan iyaga wax gaaraa aysan jirin. Waa caano faa'iido u leh dhan kasta iyo da' kasta oo aadamaha ah marka laga reebo ilmaha 6 bilood ka yar oo aan iyaga uga hadlay muuqaal caanaha ugu fiican ee la siin karo. Haddii aadan arag muuqaalkaas, qaybta hoose ayaan ku dhigayaa ee description-ka ee ka daawo halkaas. caanaha geela waxaa laga helaa nafaqooyin badan oo isugu jira waxyaabo kala duwan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay. Midab ahaan waa caddaan leh dhadhan xooggan iyo riix macaan. Waa suurtagal inay kala duwanaadaan dhadhan ahaan sabab loo tiiriyo daaqa uu helo geela iyo biyaha. dhowr ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee caanaha geela oo aan halkan ku soo jeedin doono ayaan ka dhignayn dhammaan inta faa'iido ee laga helo caanahan. Waxaa jira intaan in ka badan oo faa'iido ah, balse intaan waa intii igu dhoweyd ee aan soo gudbin karay. Faa'iidooyinka geela laga helo waxaa ka mid ah nafaqooyin jirka caafimaad u leh sida calcium, protein, phosphorus, vitamin C iyo vitamin B3. Waxaa kaloo laga helaa caanaha geela hormoon ama protein la mid ah insulinta. Waa dhacaan ka hortaga macaanka. Sidaa daraaddeed, caanaha geela waxay ka hortag u yihiin sokorta. Difaaca jirka. Caanaha geela waxaa laga helaa proteins fara badan oo qaarkood ka qayb qaata inay kor u qaadaan difaaca jirka, kaasoo ka hortagaya xanuunada ay ka midka yihiin fayruska, bakteeriyada iyo wixii la midka ah. Koriimada iyo caafimaadka lafaha. Waxaa ku jira caanaha geela walxo adkeeya lafaha iyo murqaha qofka sida calcium oo ay ku jirto 3 jibaar inta laga helo caanaha lo'da. Waana sababta ay ugu horeeyaan quudka la siiyo qofka jaba caanahan si kabniinka uu u fududaado. Ka hortagga dhiig yarida waa faa'iido kale oo ay caanahani leeyihiin maadaama ay ka buuxdo maadada birta ama ayroonta marka lala barbar dhigo caanayowga kale. Waana qaybta qaabilsan in la soo saaro ama ka qayb qaadata soo saaridda unugyada dhiigga cascas. Cilmi baarisada qaar waxay sheegayaan in caanaha geela ay caawiyaan dadka xasaasiyadda qaba, kuwaasi oo ka qaada cabidda caanaha riyaha ama caanaha lo'da. Sidaa daraaddeed, waa beddelka labadaasi caanood haddii aad dhib ku qabtid adiga iyo dhallaankaba. Caafimaadka wadnaha. Caanaha geela waxay isku dheeli tiraan kolestaroolka jirka ama dufanka. Sidaa awgeed, waxay udub dhexaad u yihiin caafimaadka wadnaha. Sidoo kale, waxay qofka ka caawiyaan wadna qabadka ka dhasha qulqulka xididdada dhiigga wadnaha. Ka hortagga kansarka. Cilmi baarisyo kala duwan ayaa sheegaya in caanaha geela ay ka hortag u yihiin kansarka ku dhaca uurku jirta sida beerka, xiidmaha, walamadka iyo burooyinka qaar. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. Haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar, subscribe dheh channelka oo nagu soo biir. Siina gudbi muuqaalka si dadku ay wax uga faa'iidaan. Waa inoo fiidiyowga xiga insha Allah. شكرا